وشيكة يروق قابن وماد يمرتبلي مجعيجنا وحلا يدها وما يكون الرئيب شيكة ذا وحكى شيكة سنايا عبد إيدان هي عبد الله الراقي هي حسن شيخ مومن هيا عبدي نبت فلنفتك ورن ور عبد الله نبت ويه waxa Soomaalidu ay ku mahmahada cabdiyow ninkii in yaala jooga in yaala sheega warun sida aan ay Soomaalidu u badan tahay ama sa ay isku waafaqsan tahabana waxa la yiraahdaa hadalada murtida waxa laga helaa nimanka gabiya marka adduunka inta aad joogtay maalinta kuugu dareeday ma xusiisan kartaa adduunka anigu intii aan joogay maalinta ay igu darayd waan sheegi doonaa waa koow cabdillah waxaan ku weydiiyey haa xabasha wax xukumaysa oo meel joogta haa oo dawlad sheeganaysa haa weligaa meel ay joogto ma aragto ilaahay ma ku badan may waan maqlay ma sa arkin haddii aan maqlasa ilaahu ku tus meel ay joogto isma dhihin haddaba horta ilaahay kuma tuso amiin wixii ag jooga ama ay gacanta ku haysana Allah ka saaro gacantooda waxaan sidaa u leeyahay horta waxa tahay niyahow nin ayaaman waa koow nin ayaan leh haa oo ayaan uu ku faani kara leh oo ilaahay wax siiyay baad horta mar hadaanad xabashi wax xukumaysa arag ama ka xoog roono meel joogta oo kule ana ku dawladda hadaanad aragoon ilaahay weli ku tusin waxaan ku leeyahay aakhirina cadaabka Allah kuma tuso كيف قوات كبحصت هي آخرنا الله كهي الله كحفظ واكو انت آدم يدحقلين هذا الكا حكومتها كاليتو محي يوجد دوانتها مدى حبشودو او تصاص وادق يقرب بريايا انا هدك انا هرو اركين هدك بعد انا هي اسوق نجي ارجيدا وادق يقرب بريايا محي يوجد دوانتها هي maxaa ka qabtay waxay uga duwan tahay waxa jira mahmah carabiya waa ko oo la yiraahdo idaan shufto ahmar faranji xaaj markaad amxaar aragto ayaa gaalkii cadaay faranjiga xaaj noqonaya nin soo xajiyay oo xajkii ka yimaado muslina Allahu akbar marka taa qudheeda waxa ku maamahay nin wax ka arkay waa tahay oo waxaan naxaynin oo insaaniyada bini aadmiga dhankeeda ku jirin oo inaad qof tiin kala ku kala garanayn oo ka adki uun ahbu markaa isaga qudhiisu kolka ka arkay kacaynka yiri aniga waxa igu darayd magaalada awaar la yiraahdo ayaan beri tagay aniga reerka ka tagay waa ko magaaladii baa anoo hor taagan dukaan nin maxamed cabdilla ilaahan jiray anoo hor taagan ayaa nin xabashada socday tan kan xashishka yaa meesha dhigay waan deemooj ana waraay magaalada imkaan soo galay waa ko wuxuu raqaad war maxaan qaaday magaalada imkaan maana soo dhigay waxaan u qaaday ninka dhigay weydii ilaahay maqaadirtiis way kaxay fareed ana waligay xabashi meel joogo wax xukumaya isma soo taagay askari midna ma arag dadkii bay soo warqaad xabadii bay la xadurba oo dibiga la bax warqaad dadkii bay ugu qeeyay warba ka naftiisa nacayga warqaad kulkeen argay gaxan war balaadana la ku keenay waa maxay diidayo leeyahay waa ko wala xariy fareed lix daraarood iyo lixdoodii habeen ayaan ku jiray laba goor baan u malanayaa marna in nin magaalada shaahiga keenay marna inan baa xaafadiga keentay la xoox xagee ku jirta laakiin meel ay ugu rideen station meel shookiya xabsiga xabsigii holkii aan naftayda u yaabay ayaa mid igu yiri dadkii la xiri jiray meesha ku jiray war hee dhawaad baqtii doontaa meesha wax la iskuma siiyee waxaasay ku ladan yihiin waxay kaxeeyaan dadkoo ninka cid baan garanayaa magaalada ay soo marmariyo way kaxeeyaan waa ko oo iyaga qudhood waxay leeyihiin ka kaxeeyay inuu wax ka helo dadkay suuqa soo marmariyaan waad baqtii ay kaxeeyay dheh ana sidan ma aqaan waa ko nin baa iga warramay ana caadadkooda iyo shaqadooda aqaan wacadan ma yaabin baa waa yaabay yiri kolkaasaan waxaan doonayaa in la kaxeeyo oo aan dadka iyaga cidii aan gargaranayay magaalada soo marmaro oo aan wax ka doonto oo aan soo wax la soo siiyo naftayda suuqa la qabto nin wali waji ka saya waa ko nin laba aluf leh oo labaala
oo meesha xukuma ayaa u yeedhay mid askari ah wuxuu ihi ninkan kaxeeyo magaalada soo marmari waa ko meel yaroo dukaan ah iyo laba maqaadood iyo waxaa inkaasa dadkii aan gargaranayay ku lahaado meeshii baan soo marmarado niman miyi ka soo galgalay iyo waxaa soo galgalay ninkan waa xidhan yahay dee waxaa lasoo taro oo 30 shilin ayaa laysa ururiyey waa ko dee waan baqanayaa nin weligii xabash arkay meehii kii askareed baa irkian lacagta aan inoo qaadeedo lacagtii buu qaaday maalintii horena hadda indhaa lagu tusay haa waa ko lacagtii buu qaaday bareed kolkii uu meeshii geeyo lacagtii 20 la hadhay 10 wuxuu yidhi hoo sigaar iyo wax ka iibibso oo wax ka cun 10kiina waa ila cunay baasadii lagu soo siiyey 20kii isagaa qaatay waa ko 10kiina maqaad baan la galo waa ila cunay kolkii dee nafta igu soo noqoteen gaajo baxayan ku soo noqday meeshii ayaa kii kaabulka ahaa yidhi maxaa soo hesheen horasaan dee anugu lacagtii wixii aan meesha ka soo helay ninkaasaa haya kii buu yeedhay wuxuu ihi lacagtii wixii ka sii wuxuu ihi waryaa waa ninka maxbuuskii waa kaase kolkaaga kaxayso oo magaalada la galo dee adba kolkaaga kusoo meermeer wax kusoo ururso aniga maxaad ileedahay kolkaygaan kaxaysa kolkaaga kaxayso soo iibso haa maxbuuskii baa nimbo kolkiisa kaxaysanaya ololey magaalada kaali soo marmar subaxdii dambaa kii kaabulka ahana yidhi ninkeenana maantaan ku kaxaynaya adigaa amar arkay kolkaasaa uu suuqii soo geshay waa ko markii uu magaaladii isoo geliyey baa dadkii dee ilan waxaan war uma hayaan oo awaarana beryahaasay qabsadeen oo soomaalida geestan soke ma arag nimanka waa ko kolkaasaa idhi war shalay haddaad magaalada dee wax yar baa dadkii joogay ama nimankii miyi kasoo galgalay ama labadan maqaadood iyo daaskan aad shalay martad oo lacag lagu siiyo 30 shilina xaggee baad maantana u socotaa maantana maxaad leedahay waan warnimay aniga nimankan iyagu may wado yidhi maantana ayna keen wixiina anigu wax kama aragay ninkii wadun baa qaatay ee anigu maqaadan umaan kol galado aan wax ka dhadhamiyey yaa maantana wax ku helayaa la yidhi shalay 4-5 nin baa reeri kasoo galo joogay yaa waxaya maanta dadkiina cidi kama joogto waxaanu lahayn 7-8 shilina cunee oo kolba kolkaa uu 15 casho la moogayay waxa loo ururiyey yaa maalin walba lacag haya ninkii maan warinayo dadkii magaaladii waa ka maqay waxba helmeyneen celi waa ko inaan isagii canaadi yahay buu mooday uu yidhi kii shalayba waa kii lacagta kusoo gurtay aduu ku canaadaya oo kaas uu hoos kala socaya ninkii baa ila baxay kolkaasi bunduqa dabadiisii ila baxay 2 goor kolkuu igu dhuftay haa in yaabana le war xagga qalladu kaaga dhacday magaalada soo booqdaa ninka oo magaaladii baa soo yaacday war muxuu ku sheeganayaa baan wuxuu ninkan waa ay wadi magaaladan soo meermeero markii magaaladii lacag laga waayay dee ayuu dilay isna afgaran mayna ninka la hadlo nin baa la hadlo oo yidhi maxaad sheeganaysaa wuxuu yidhi intuu miga soo kaxeeyey xeradii yidhi magaalada kaalaysa oo magaalada lacag ka soo leeyahay kaxee ayuun buu imkaanigii ka soo horjeestay waxaan war nin shalay soo kaxeeya waxoogaa helo kii uu ku hinaasaysan yahay ninka iga furta horta halkii baa magaalada lacag ururiso markaasa ninkaan ka furanno wax caynkaasa ayay nimanku yaqaanaa waxaanaa jira nin haddii uu meel ay joogaanba yimaado haa halkan inagu aynu 3 saac nidhaah ama 9 saac ee habeenkii haa nin kasta oo meel xabashii joogto joogaba waxaa jira sharci haya 3 saac haddii la gaadho ama 9 saac wax dhaqaaqi kara iyo wax may dhintay ku qaylin kara iyo wax dabada kusoo kaaji kara naag umulaysana xitaa looguma yeedhi kara haweenka umuliya oo waa iska kabir fooko mar haddii waa cayn kol hadday 3 saac tay meel amxaara joogto wax socon karaa miyi ka soo gal dhaan wad safar wad mayda kaaga oo meel u qaad xabaalna aad qodaysa saacadaas hadday 3 gaadhana aaska waa laga dareerayaa mirri qodna loona wax dhaqaaqi ma jiro kaana waa caado weligeed meel ay joogto hadda waa colaad iyo nabad goor kastaba allah ilaahay sida aad iga duceysay u taalla hadda waxaad leedahay maxaabista ay ku tuugsataa askarta amxaaradu kolkaaga kaxaysa weeye bal xasan sheekh muuminna aan su-aalno xasan sheekh muuminow adigu waxa aad ka aragtay nimankaas xabashida la yidhaahdo xukuumadooda wax ma nooga sheegi karaysaa maanta anigu wax waan ka arkay aqoonna waanu leehay waa koow kamana warrami karo oo haddana kama warrami kartid waayo dee geesan kaga hagaago haa uun ciibahooga ka sheego garan maayo waa kaa bateen waxaan ku mataali karaa nimankaa geedka tiinka la yidhaaho haa geedkaa tiinka la yidhaahi fartuu kaa mudaa waa koow afka iskaga goobaa tiraawelkaha dabeetana carabkuu kaa mudaa
allahu akbar meeshii kaleetee jidhkaaga aad gacantaadaa ku taabatana wuu kaa qabsadaa markaa nimankaa ninka idhaahaa ceeb baan ka sheegayaa iyo xumaantoodaan ka tilmaamayaa isagaa ku waalanaya wuu ku wareerayaa waxaase ayaan daran ninka ay gacanta ku hayaan maanta ee iyaga hoos jooga markaad u eegto gees kalena iyagaabaad u naxdaa waxaad ugu naxdaa kolkaad aragto siday dadka u gelayaan eed la yaabto iyaa dhabanahays kale kugu soo biiraa markaad u fiirsato sida iyaga lagu hayo waa niman nin keliyahoo boqor ihi u ilaahnimo u sheegto waxay yidhaahiin u ictiqaadsan yihiin iyaga oo dadnimadii iyo bani aadamnimadiiba qalbigooda laga tiray waxay yidhaahiin haddii magaca boqorka ay maqlaan biyuhu way istaagaan run bayna u haystaan xaggee bay biyo iska taagayaan magac boqor lagu dhaariyey waxa kaleeto oo yidhaahiin oo caddaan ah haddii uu nin axmaari ihi turaanturoodo oo uu dhagax suulka ku dhifto waxa ku waajibay inuu yidhaaho halkii uu laa ilaaha illallah odhan lahaa ama uu naftiisaba odhan lahaa wuxuu idhaa ilaahow cimrigayga cimriga boqorka ku dar bismi illaahi araxmaani raxiim waa ku waajib ilaahow cimrigaygii anigu aan lahaa ee noolaani lahaa ka boqorka ugu siyaaday oo noloshiisa ku dheeray waa nin fartii go'day oo markaa wuxuu ka dhigaya in boqorkii maqlayo inuu boqorkii maqlayuu ka dhigaya markaas waxyaalaha ay dadka ku sameeyaan waxa ugu daran qiyaamaha wadaadadu inoo sheegaan ma maqasheen qiyaamahaayoo dhaba markay sameeyaan ay dadka tusaan qiyaamahaasoo xaqiiqa ah waa maxay qiyaamahaasi waxa weeyaan qof baa meel lagu dilaya ama kuba dhimanayo besba u dhimanayo qofkii dilayna lama hayo waa koo bani aadamku qofkiibuu raacaa wixii dilay uu baadhaa waa koo laakiin iyagu ummaddaa degmadaa dhan taallo oo idil bay soo ururiyaan meel qoraxay isugu geeyaan markaasay habar walba ilmihii ay nuujinaysay ka qaadaan tu kale oon dhalin bay u dhiibaan way iskugu bedbedelaan biyahay ka joojiyaan cuntaday ka joojiyaan markaasaa dadka shaabuug lagula wareegaa maalintaa maxaa la yidhahdaa maalin hafarsaa la ydhahaa afxabashka waxaa la ydhahaa dadkaasi hafar soo oodan yahay qof ka bixi karaa ma jiro qof ka tegi karaa ma jiro bilow qofkii masba qaniinyoo dhimay camal weydiisay ula jeedaan iyagu markaas iyagu waxay ku leeyihiin dadkani ha sheego ninkii ninkaa dilay qofkii bes buu dhintay markaa waxyaalaha ugu xun ee lala yaabo waxa ugu daran qiyaamaha ay sameeyaan ee ummad ilaahay abuuray soo oodaan oon dembi lahayn kolkaa kuwa anigu ceebtooda kana sheekayn kari maayo afkayguna kari maayo meelan kaga hagaagana garan maayo iga daaya kuwa allah ilaha sidii cabdi iidaan uu iga duceeyey araggooda haddaadan hore u arkan gadaalna alla kuuma tuso uu yidhi waa uu yaallaa barnaamijkii sheekada gaaban ahaa in halka